xildhibaane marka koowaad hambalyo marka labaad xilka aad maanta ku saaran ilaahay ha kuu fududeeyo waa kuu ducaynaynaa allah ha ku waafajiyo adduun iyo aakhiraba mid aad maaragtay nin ku xisaabtama inaad noqoto dadkaa ku sugaya oo kuu hanweyn oo matalaadda aad maaragtay matalaysid iyo Soomaali oo dhan reer Puntland iyo Soomaaliba waxaan rajaynayaa inaad noqoto nin ka soo baxa hawshaas waana geeydaa waadna u qalantaa mid adiga iyo inta kale oo kula midka oo xildhibaanada ah oo Soomaaliyeed oo la doortay baan leeyahay oo waxay tahay daacadnimo inay ugu adeegaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed inay u ilaaliyaan diintooda iyo ummadnimadooda iyo wadajirkooda Soomaali dhibaato badan baa haysata marka waxa ugu horeeya waa shaqada hadda aad qabanaysaan inaad ka fiirsataan cidda aad dooranaysaan aad ku doorataan doorasho qof hawsha qaadi kara qof Soomaali dhabar u leh oo Soomaali wadi kara oo Soomaali maaragtay meeshay marayso hore uga wadi kara insha Allah ta'ala beesha waxaan leeyahay waa ilaahay mahadiis maantay waxba la isku jiidaa oo la isku xagxagtaa waxaad ogaateen waxa kan ilaahay baa bixiya kursiga la doonayana waa hal kursi oo hal qof buu qaadaa ragga ku tartamaya oo maaragtay doonaya ninkii ilaahay u qoray baa helaya sida maxamed cabduqaadir uu hadda u helay inaynaan isku nicin isku maaragtay xagxagan marka la doonayo loobin baa la yiraahdaa oo raggu wax waa doonaa waa la ordaa nin walba waa ordaa nasiibkiis maalinta qof helo waa in la garab istaagaa oo lala wada shaqeeyaa oo loogu hambaliyeeyaa oo la garab galaa maxaa yeelay waa ku khasban tahay maaragtay maanta isaga aad ku guuraysaa waa yaani hayinkii aad lahayd oo aad ku guuraysa way qofkii meesha masraxa ku joogay way wuxuu u baahan yahay inaad kaabtid oo aad garab gashid oo aad u ducaysid oo aad la talisid oo aad dhaliishid oo aad xiriir la leedahay ilaah baa dadka wax siin kara oo deeqi kara ugama fadhino nin walba inuu deeqo laakiin inuu booska uu joogo uu yahay qof ka soo baxa Soomaali u shaqeeya dadkiisa iyo deegaanka uu ka yimina og wixii markaa insha Allah ta'ala uu soo maaragtay ka qaban karana uu ka qabto wuxuu u baahan yahay markaa taa nafsirkeeda tusaaleyn buu u baahan yahay lala socdo u baahan yahay qoliyaha maamulka gobolka jooga odayaasha dhaqanka cid waliba in maaragtay la garab galo ayuu u baahan yahay waana ina ka codsaday insha Allah waana ballan qaadeen waxaan rajaynaynaa inay sidaa ay ku timaado oo ay sidaa ku fusho waxaan u baahannahay marka maalintii la yiraahdo waxbaa la dooranaya maalintii hore madashii hore aan isugu nimana waa kay inaynu isu nimaadno oo aynu ay xasarad inuu ku abuurto hadda iyo kow waxaan u baahannahay inaan isxallinno waxaan u baahannahay inaan yeelanno dariiq aynu ku wada shaqayno waxaynu u baahannahay sida ummadaha inala midka ah ummad maalin walba ishaaraamayso ishiifaysa dee meel gaari mayso waxa la isku haystaana macno ma leh waddankeenna shaqo u baahan yahay nin walba boos ku leeyahay inuu qaataa loo baahan yahay in la isku qadariyaa loo baahan yahay dadka shaqaynaya oo isxilqaamaya oo ordaya in la caawiyo oo la garab gala loo baahan yahay dadka shaqeeyay in loo maaragtay mahad celiyaa loo baahan yahay oo la dhiiri geliyo kuwa gaabinaya in la canaantaa loo baahan yahay wixii qalada inaan iska qabanaan u baahannahay waxaas oo dhan marka waxa weeye inteenaan iyo in la mid ah baa looga fadhiyaa waxaan ku faraxsanahay mas'uuliyadda ragga inoo hayaana waa dhalinyaro meesha hadda dadka fadhiyaana dhalinyaro u badan yihiin dhalinyaradu marka iyagaa mustaqbalka leh iyagaana hogaamiyayaashii berri ah isma huraysaan
kala tegi maysaan idinkaa laydinka rabaa nafsirkiinnu inaad isku xihantihiin inaad leedihiin aaliyaad tuulis aad isku kulantaan oo idin jamciya oo aad ka hadashaan kor u baxdaan oo aad qayrkiin iyo asaagiin wax la qaybsataan rag fiican oo arrimahaas ku fiican waad leedihiin inaad is-abaabushaan baa loo baahan yahay sidoo kale odayaasha dhaqanka waxaa loo baahan yahay dhaqanka inaynu adkaynaa loo baahan yahay isku xirnaantiisa wadajirkiisa xeerarkiisa inaynu adkayno siyaasaddu inayna fasaadin siyaasaddu waxa weeye lagama maarmo oo waddanka adduunku siyaasad buu ku socdaa laakiin waxaynu u baahnaa dad bartay aqoon dhallinyarada hadda wax baranaysa inay cilmiga siyaasadda bartaan ninkii danaynaya political science raggii bartay waagii macaahidda ka soo baxay oo dabagoosigooday u dambeeyay hadda waa yeel yihiin wixii ka nool wax badan baa laga faa'iiday magaranaysa oo talaad ka helaysaa yacni marka siyaasaddu waa wax hawl weeye dad khaasa siyaasiyiinta in maaragtay ay ka shaqeeyaan wey dhaqanka in lagu walaaqa maaha maxaa yeele dhaqanku waa nadiif mara cad waaye moogta siyaasadduna dee waa isrogrogtaa yaa mikyafeli alqaayad tubarur lwasiila khiyaana ku jirta xatooyaa ku jirta maanta soomaali waaba la kharibay inay ahaato sidaa ma ahayn yani khilaafa raashida iyo siyaasa sharciya fi lislaam iyo markaad akhridid waxa weeye waa nadaafad weeye nadiif mara cad baa la rabaa